Tani waa sheeko ina dhex martay aniga Mahmoud Khaliil oo Suuriyaana iyo Haral oo Norwejiyaana. Hase yeeshee sheekadan waxay si toos ah u taaban doontaa mid ka mid ah dhaqamada iyo caadada xun ee Soomaalideena. Si aan dhammaanteen ula socono sheekadaas isoo raaca. waxaan u sheegay in dhammaan qalabkayga aan soo qaatay diyaarna aan u ahay in aan guda galno barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku balansanin kaasoo aan doonayo in aan kaga waraysto xirfadooda shaqo waxayna igu soo dhaweeyeen gacmo furan iyo heestan. I backen står der et hus. I backen står der et hus. I backen står et skomakerhus. Skomakerhus. Og så videre og så videre. Dette var en kunde med heestan waxaa ii qaaday mid ka mid ah macaamiisheeda muddo sanooyin ka hor. heesta waxay ka koobnayd in ka badan 100 eray, laakiin aniga waxaan ka soo qaatay bilowga hore waxayna ahayd mid uu ku dhiirigelinaya aniga iyo dadka xirfadlayaasha ila midka ah ee tumaasha. ayuu yiri Haral oo wajigiisa ay ka muuqatay farxad iyo reyn. ugu horeyn Haral Raday ayaan weydiiyay goorta uu bilaabay, cidda uu ka bartay xirfadan shaqo iyo haddii ay jiraan dad kale oo u shaqeeyo. waxaan bilaabay 1986 bilowgii hore uma aanu lahayn wax aqoon dheeraad ah marka laga reebo hal bil oo aqoon kororsi ahaan aan u shaqeeyay, laakiin xirfadan waxaan si wanaagsan uga bartay adeerkay. dadaal dheeraad ah kadib waxaan ku guulaystay xirfadda in aan si wacan u barto ilaa markii dambe adeerkay uu igu yiri markan waxaa la joogaa xilligii aad si iskaa ah u shaqaysan lahayd, aniga ayaa leh oo halkan ka shaqaysta, mana jirto qof aan u shaqeeyo. wuxuu ii sheegay inay u yimaadaan dad macaamiil aad u fara badan, qaarkood laga yaabo inay murugaysan yihiin balse markay albaabka ka baxayaan ay baxaan iyagoo faraxsan. shaqadeennu way badan tahay, waxaa inoo yimaada dad macaamiil aad u fara badan, xitaa haddii ay inoo yimaadaan iyagoo murugsan waa inay albaabkan ka baxaan iyagoo qanacsan qoslaaya, sababtoo ah tani waa waajib aniga i saaran si aan macaamiisheeda u qanciyo haddii ay ahaan lahayd dhinaca shaqada iyo dabeecaddaba. waa la yaab. dhinaca kale Mahmoud Khaliil ayaan su'aalay intuu ku guda jiray hawshan wax caqabad ah oo ku saabsan sumcadiisa, magaciisa, mansabkiisa, inuu kala kulmay ama xitaa dad xirfadiisa ku aflagaadeeya. wuxuuna iigu jawaabay Mahmoud Khaliil Mohammed, jag kommer från Syria. Jag jobbar skomakare med shaqadan waa mid la isku ixtiraamo, waa xirfad weyn. bulshada halkii ay alaabahooda tuuri lahaayeen ayaan u samaynaa, waana midda aan ku mudannay inna lagu ammaano, mansabkaygana waxba uma dhibto. marka aan ka gudubno shaqada Mahmoud Khaliil waxaan weydiiyey inuu ku faraxsan yahay kuna qanacsan yahay iyo inuu jecel yahay ka qaybgelidda xafladaha iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan. shaqadan waan ku faraxsanahay kuna qanacsanahay aad iyo aad, haddii aan bannaanka la joogo saaxiibaday oo aan xaflado kula caweeyo iyo haddii aan qoyskayga la joogo. farxadda nolosha furaheeda waxa waaye marka aad ku qanacsan tahay shaqada aad haysatid, sababtoo ah markaas waxaa imaanaysa in aad horumar sii samaysid oo aadan dib u laaban. cajiib. dadka xirfadlayaasha sidooda oo kale ee ku shaqaysta shaqadan kuna sugan qaaradda Afrika, sheekooyinkooda waxyaabaha ay kala socdaan haddii ay jiraan ayaa si isku mid ah u weydiiyey, waxayna ku jawaabeen maya ma jirto sheeko gaar ah oo aan ka haysano, laakiin waxay nala tahay in xirfadluhu meel kasta uu adduunka ka joogo, Afrika, Aasiya ama xitaa Ameerika, inay isku mid yihiin, waayo bulshada ayay kaalin mug leh kaga jiraan, ayay ku jawaabeen iyagoo dhoola cadeynaya. sidaan hore idinkugu sheegay sheekadan waxay si weyn u taaban doontaa dhaqanka iyo caadada xun inay yihiin wax asal ahaan dadyowga Soomaalida ay u haystaan inay ka soo gaareen awooyaashood, hase yeeshee diin ahaan iyo dadnimo ahaanba ay tahay wax xun in qof shaqadiisa ama xirfadiisa looga dhigo mid si gooni loogu faquuqo, bulshada inteeda kalena laga dhex saaro. haddaba adigan sheekadeeda daawaday ka waran haddii aan barnaamijkan ku waraysan lahaa mid ka mid ah xirfadlayaasha Soomaaliyeed ee kabaha tola, ma waxa uu iiga sheekeyn lahaa dhibaatooyinka lagu haayo mar walba iyo faquuqa uu kala kulmo, mise farxadda uu haysto ayuu iiga sheekeyn lahaa sida ninka Suuriyaanka ee Mahmoud Khaliil iyo Haral Raday farxadda ay ku haystaan isla markaana
ay iiga sheekeeyeen ayuu isna iiga sheekayn lahaa. Bila Maxamed Cabdi, SRN TV, Bergen, Norway.